Alo Jojoba shampoo aniga waa waxyaabaha maanta kambanigan markaan kusoo biirayay waxaan ku bilaabay Alo Jojoba shampoo waa barodhaktayaashii iigu horreeyay oon isticmaalo subxaan allah Alo Jojoba shampoo maxaa waay aa u jeclaataa lay weydiiyaa waxaan u jeclaaday horta marka koobaad jantali jirkoo dhan ayadoo lagu dhaqanayo haddana timaha hadday kaa daadanayaan hadday kaa jajabayaan hadday kaa siibanayaan hadday tintaadu lafta kasoo siibanayso haddii madaxaaga aad tahay dadka timuhu ay ka bambanaanayaan aad iyo aad ayay kugu fiican tahay maanta waxaa laga sameeyey jojoba waa barodhaktiga maanta ugu qaalisan adduunka ee laga isticmaalo oo dadka celebrate ay isticmaalaan barodhaktigaasi waa barodhaktiga ugu fiican maanta barodhakti lasoo saaro ee jojobo ku jirto waa barodhaktiga ugu qaalisan annaga maxay ka samaysan tahay waxay ka samaysan tahay jojobo alafeero iyo waxay ka samaysan tahay argon waa saddexda barodhakti oo maanta ugu qaalisan adduunka timaha jajabka daadashada siibashada lafta ay ka bambanaanaanayso timaha fooda iskaga dhigayo dadka timaha adag dadka aan timahoodu koraynin ee timahoodu garmumaaga yihiin waxaasoo dhan meelay saareen hadda waa joojiye laakiin waagii hore gabadhayda waa soo diri jira timaheeda isbeddelkii maalintii koowaad iyo maalintii dambe muddo markaa isticmaalina sidoo timaheeda isku bedelay laakiin hadda videogaas waaba dhiliid gareeyey sababta oo ah waxaan u dhiliid gareeyey meel kasta isagoo wareegayaan arkayo marka sorry adikan waa idinla wadaagaa laakiin Alo Jojoba shampoo waa shampoo aad ilmaha dhashay ugu dhaqi karto waa no sulfate wax cusba ama kiimika kuma jirto toorale cunuga yarka oo caawa dhashay aad u isticmaali kartaa isla ogaada waxyaabaha aniga aan ugu jecelaha waa kambaniga subxaan allah